dowladnimadeed ma duminayno laakiin nalooma adeegsanayo in lagu dumiyo nalooma adeegsanayo in lagu qabsado in walaaladayo hawiye inay tuutaha noo soo xidhaan oo tuuladii xalayta aan u hoyday saddex habeen ay sii jimika ku jirto ma ogolaanayno kelmadaas halowga ma ogolaanayno in nala dhashay oo tuuta noo soo xidha oo yidhaahda anaa dowlada adiguna shacab baa ahaanaysa ma ogolaanayno ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda dir buu ku xidhan yahay shanta qowmiyadood ay dowladooda Soomaaliya leedahay shantaba waa ku noolahay qowmiyadda ugu badan baa nahay shantaba mid aan xitaa haaf nahay mid aanan majority ahayn mid waxaan u sheegaynaa ma u dulqaadanayno waxa ka socda number 2 ma u dulqaadanayno waxaan leeyahay mudane madaxweyne dagaalada ka horeeyay waxaan malaynayaa muddo adigu dhowr asbuuc ayay dagaaladu socdeen dagaalkii ugu horeeyay annagoo ka hadlayna oo irjac oo odayaasha dhaqanka qowmiyadda jireed ka kooban ayaan gurigaaga kugu nid ood nagu qaabay waan wada hadalnay arrimahan ka wada hadalay kadib waxaad noo sheegtay markaan ku nidhi annagu shacab islaynaya ma arkin waxaan aragnay ciidamadii dowladda oo shacabkii deegaanka u dhashay ee deganaa xasuuqaya oo u adeegsanaya hubka iyo shaanada dowladda iyo astaanta milatariga ee dowladda laakiin dad shibil oo dadka la dagaalamaya maarmaa milatari dadkii deegaanka ahaa gumaanayaan aragnoo ku sheegnay waxaad noo qiratood noo sheegtay inaad waktigaa meesha aan fadhina aad tahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka jira waxaana tiri maanta ka bacdi la arki maayo arrimaha aad sheegataan la arki maayo ayaa tiri waa naga badanaa qowmiyaddu waxay cod dheer ku sheegaysaa inuu dhammaaday xilligii dulmiga iyo isku dulnoolaanshaha taas oo ay weli ku riyoonayaan dadyow xaarakunaaxyaala qowmiyaddu waxay uga fadhidaa madaxweyne xasan sheekh inuu maxkamad soo taago janannada iyo saraakiisha ku labisan xidigihii ciidanka xasuuqaas iyagoo ka tarjumaya dana beeleed qowmiyaddu waxay ka digaysaa burbur ku yimaada ciidamada dowladda haddii wax cad laga qaban waayo ciidamada qaanbeeleedka u hawlgalaya iyagoo wax ku gumaadaya